السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارتا شرفتا احترانكا كرامة يوانا قبضنا أدبانيني سلامينا وقت وعاني نور القرح بدن بانيدين رجينينا يكسو دوادا كنال كينا عافيماتكا إضريالكا عافيماتكا نولوشا مقالكا وحين كسو قادنينا هويني قرالي نوغسو ديرتايدين ع فيسبوكا haweenaydani waxay qoraalkeeda ku sheegtay ama ay ku xustay arrin iyada la soo gudboonaatay oo inooga baahan tahay talo iyo tusaale wixii nagala gudboon inaynu siino. haweenaydani waxay qoraalkeeda ku sheegtay inay ka mid tahay haweenka nasiibka u helin ama markaas aan fursad u helin dhakhaatiirta iyo noloshan dambe ee casriga iyo dadkan imika qofka anaadka loo dhibin. waxay tiri waxaan ku dhashay meel baadiya kadib waxay ku dhacday bay tiri jirdilka in markaa xubinkayga jirka qaar ka mida xilligii aan yaraa la gooyay oo la baabiyey. waxay tiri gudniinka aadka u xun ayaa laygula kacay oo laygula tallaabsaday weliba mid waxay tiri bilaa arxana oo si xun laygu dhibaateeyey ayaa laygu sameeyay bay tilmaamaysaa walaashani. waxay tiri dhibaataday soo gaadhay waxa ka mida ama halisaha khatarta aan ku dhacay waxa ka mida inaan xilli kasta iyo maalin kasta iyo waqti kasta iyo saacad kasta iyo minid kastaba aan xanuun leeyahay oo waxay tiri aan macdan xanuun leeyahay oo kaliya xanuun leeyahay oo haddii aan saacad la naado farxadda adduunka ayaan waxay tiri aan dareema waa hal saacad oo ka mid ah noloshayda haddaan in yar nabarka layga jaro. inta kale waxay tiri galyaha ay xanuuna oo jidhka ay xanuuna oo xubnaha ay xanuuna oo waxay tiri caadada ayaa dib ugu noqota oo iga iman weyda oo dhibaato badan ayaa waxay tiri xilliyada qaar aan ku dhacaan dareemayay bay tiri anigoo waxay tiri sidaa ula silcaya dhibaatadaas iyo halista iyo khatarta iyo mushkiladda anigoo sidaa ula silcaya ayaa waxaan sameeyay bay tiri inaan markaas aan guursado. guur baan samaystay iyo guri xalaala ayaan doontay bay tiri. waxay tiri muddo kadib guurkaygii waxaan la kulmay bay tiri dhibaatooyin aanan qalin iyo qoraal ku soo dhamayn karin ama aanan ku soo koobi karin. muddo marka xaaladii sidii ahayd waxay tiri ilaa hadda wax ubada iyo wax awlaada oo aan hayaa ma jirto. ninkaygii aanu markaa isqabnay ee runtii nolol badan iyo dhibaato badan iigu dul qaadanayay bay tiri anigu waxay tiri waxaba yaraatee dareenahoo aan leeyahay ma jirto. waxay tiri wax kasta oo markaa nolosha macaankeeda iyo farxaddeeda iyo dhadhankeeda midna waxba waxay tiri kama dhadhamiyo ee wax allaaliya waxa bulshada ama dadka caafimaadka qaba ay markaa iyaga wax aniga qaraar buu yahay bay tiri xanuun buu yahay bay tiri xumad buu igu samaynayaa bay tiri dhib kasta wax kasta oo laba qof oo markaa iskuursaday dhexmari kara ama markaas ay ficil kasta aniga wuxuu yiri xanuun iyo aniga waxay tiri buu xanuun iyo jiro ayay igu abuurayaan arrimahaas. waxay tiri markii uu arkay xaaladaydu sida ay tahay way iga tagay bay tiri ninkii qabay muddadii aanu wada joognayna oo ilaa hadda ana wax u bada ma haya bay tiri weli dhibtii iyo dhibaatadii waa la cabanayaa bay tilmaamaysaa walaashani. khatartu way igu sii socotaa xaaladayduna aad bay u sii culus tahay walwalba igaga daran imikana waxa igu sii daran ma sidaas ayaa adduunka kaga tagaysaa adigaan ubad helin oo aan awlaad helin oo aan markaa tafiirtaada arag baad adduunka ka tagaysaa bay tiri. waxaan idinka bahay bay tiri tala caafimaad intaad ka awoodaan inaad ii soo sheegtaan. xaaladayda waxay tiri aad bay runtii u liidataa damac guur iyo dareen guur midna iguma jira bay tiri anigoo imika xataa aan reer lahayn oo aan xaas ahayn oo markaa qof madax bannaana inaan mar dambe guursado xataa ma doonayo laakiin waxaan niyada ka jeclahay bay tiri inaan marun ubadkayga arko oo tafiirtayda arko oo awlaad aan dhalay aan arka bay tiri. tala caafimaad ayaan marti idinka ahay bay tilmaamaysaa walaashani. waxaan idinka doonayaa inaad si kaliya laabaad iigu soo jawaabtaan oo jawaabtayda weliba aad ila soo dhaqsataan bay ku soo qortay qoraalkeeda. aad bay u mahadsan tahay haweenaydan runtii waa haweenay ku xidhan kanaalkeennan caafimaadka
muuqaallo hore oo dabcan baxay oo dadka qaar dhalinyarta hadday ragga noqoto ama wiilasha iyo hadday dumarka noqotaba aynu kaga tala siinaynay bay dhageysatay iyaduna qoraaladaas ayay nala soo wadaagtay waxaynu ka cudur daaranaynaa inaynaan si dhaqsaa siday doonaysay aynaan ugu jawaabin oo muddo usbuuc ka hora ama ilaa 4 cisho ka hor usbuuc ma gaadhin 4 cisho ka hor bay qoraalkay nala soo wadaagtay haweeneydan aad bay u mahadsan tahay waxaanu ku nidhi dhinaca YouTube-ka ayaynu kaga soo jawaabaynaa oo runtii way nala socon doontaa qoraal yar oo gaabanna waynu qornay oo jawaabteeda ku saabsan oo dhiirigelina dhibaatooyinka noocan oo kala ahi marka ay ku dhacaan ibni aadanka waxa aad u qurux badan marka koobaad in lala qeyroodo oo loo beerdanqado oo loo beernaxo oo in naxariis lagu yeego sababtoo ah qofku xilli aanu awood lahayn oo aanu wax iska celin karayn ama aanu doorasho lahayn ama aanu talo lahayn ayaa waxa lagu boobay wax waxyeello badan oo culus gaarsiinaya naftiisa xilligaana uu tamar darna oo aanu talo warigadaaya waxaan dhibaatay leedahay aanu lahayn dadka xilligaa ku boobayay ama arrimaha noocan ku sameynayay dad nasteexay ahaayeen dad markaa gacalkeeda bay ahaayeen dadkii laga yaabo iyada inay dhaleen bay ahaayeen laba arrimoodba way ku qasbayaan inay sameeyaan san filayo mid dhaqankii xilliga ay adkaabo ahaa midna wuxuu ahaa waxaan aanay aqoon u lahayn dibta inantooda ama gabadhooda uga imanaysa hadhowto labada shay ayaan filayaa inay ku qasbayeen dhaqankii xilligaana waxa lagu sameyn jiray haweeneyda haddii aan ficilka noocaas lagu sameyn ceeb baabay ka ahaydba meesha ama goobta ama dhaqanku sidoo ahaa cidi guursan mayso cidi eegi mayso cidi la hadli mayso cidi wax qof dumara oo markaas iska ayaa laga soo qaadaya xaaladeedu aanay markaas saxsanayn dhaqanku saas ayuu tilmaamayay xilliga dadkii xilligaas markaana aqoon darro ayaa jirtay baahsan oo xagga caafimaadka oo runtii wacyigelin la'aan fara badanina dabcan way jirtay haddaynu aad ugu soo dhawaano haweeneyda taladeeda waynu runtii istu taagno maxaynu kula talinaynaa iyo dhibaatadan aad ka uga cabanaysa khatarta waxaynu kula talinaynaa imika wixii waa dhaceen xubintii waa la markaas operationkaas ama qaliinka waa lagu sameeyay ama sida ay dabcan u farsameeyeen way sameeyeen adigii marxaladii ka soo gudubtay qof weyn baa tahay imika maxaa kula gudboon hadaba inaku waxaynu ka afeefanaynaa marka koobaad dawooyin la liqo iyo kuwa la isku mudo iyo kuwa qaab kale loo isticmaalo midna ma qorno taas authority-ga noocaasa waxa yeelan kara dhakhtarku xilliga uu qofka ka qaado exam uu ka qaado analysis wax la yiraahdo iyo diagnosis markaas ayaa dhakhtarku wuxuu waajib u yeelanayaa in uu fuliyo ficilada noocaasa inuu dawo qoro ama qofka daweeyo xubinka haddaynu istu taagno haddii la jaro maxaa xala haween badan oo lagu sameeyay arrinta noocaasa jira qaabka loo jaro ayaa kala bedelan oo aad u kala duwan haweenka qaar aad baa lagu fogaada dhaawac jireed baa la gaarsiiyay oo ballaaran neerfisyada area-da mar oo dhan baa la baabiya waa taymka aan filaya haweeneyda inay ka cabanayso neerfisyadaas area-da mar oo dhan hadii la baabiyo haweeneydu waxay ku dhacdaa waa marka dhibaatooyinka ballaaran ay dareento ee khalkhalka badan uu ku yimaado ee xadaada fiirteeda ay saameyn ku sameyn karto laakiin haweenka qaar hadii aan lagu fogaanin dareenkoodana way helaan wax kastaana caadi u yihiin dhibaato waa laga yaabaa inay xilliga ay caadada ay helaan ay gubto ama ay xanuunsadaan ama dhibaato noocaas ama waxoogaa xilliga ay tulan yihiin inay dhibaato ay ka dareemaan sida kaliya xanuun iyo markaa waxoogaa inay infection iyo waxyaabo noocaas ay dareemaan waa macquul laakiin iyaga dhibaatadoodu aad uma khatarsana haweeneydan iyo haweenka la facaahi waa kuwa aadka lagu fogaado ee dhibtoodu ay aadka u badantay haddaba haddaynu nimaadno qodobka koobaad haweeneydani waa inay samaysaa marka koobaad maskaxdeeda waxyaabahan inta badan negativity-gan aadka u faraha badan ee ku jira inay ka saarto ubad ma helaysid nolol ma helaysid farxad ma helaysid waxa inay ka saarto ayaynu aad ugu la talinaynaa arrintani inta badan waxa ay ka timaadaa nafaqada jirkaaga siday maskaxaadu u degantay noloshaada waxaas ayaa waxa ka yimaada farxadda haweeneyda
iyo inay markaa lamaane raadsato iyo inay jidhkeedu kobco oo caafimaadka jidhkeedu soo buuxsamo waxay ka timaadaa dhinaca maskaxda iyo jidhkaagu sida uu nafaqaysan yahay iyo hormoonadaadu sida ay u saxsan yihiin iyo awood iyo enerjiga aad leedahay ayaa dareenkani ka dhashaa oo keena inta badan dhinacaasu ka yimaada si kastoo lagu dhaawacay ama ay dhibaata kuu soo gaadhay haddii jidhkaagu nafaqaysan yahay oo maskaxdaadu ay degan tahay oo aanad walwalsanayn oo walbahaar aanad dareemaynin waxa kugu dhacaysa inaad farxad fara badan aad dareento inaad wanaag badan aad dareento inaad dareenkaaga iyo noloshaada caadiga aad dareento wax kastaaba kuu saxmaan haddaba haweeneyda waxaynu kula talin lahayn inay qaadato intan aynu tilmaamayno inaad soo qaadato liinta gaar ahaan liin macaanta inay cabitaan iyo juus aad ka dhigataa ood la saaxiibtaa oo xilli kasta aad isticmaashaa waa mid muhiima waxaa kaloo kuu bannaan dhammaan qudaarta hadday noqoto fruitiska iyo hadday noqoto vegetableska kuwaaba inaad aada u qaadatana waynu kugula talinaynaa waxaa lagaaga baahan yahay inaad aada ula saaxiibto caanaha gaar ahaan caanaha dhayda ahi waxa ay ka qayb qaataan haweeneyda inay borotiino fiican ay ka hesho in jidhkeeda ay buuxiso in enerji fiican ay ka dhaxasho ayay ka qayb qaataan waxaa kale oo dabcan iyadana kuu faa'iidaa oo kuu wanaagsan inaad qaadato caleenta cagaaran oo aad karsanayso sida inaad asalaataha aad isticmaasho inaad markaas aad kaaroodka isticmaasho inaad barbarooniga isticmaasho inaad kaabashka isticmaasho qudaartaasoo aan dab badan lagu sii fogaynin ama cabitaan iyo juusba aad ka dhigato ayaynu kugula talinaynaa waxaa kaleynu kugula talinaynaa in dhammaan cabitaanada qudaarta laga sameeyo adaad u qaadato ee kala duwan ay nuucyadeedu kala duwan yihiin beedka oo runtii si fiican loo bisleeyey ama laga dilay jeermiska iyo waxyaabaha fuulkaana inaad qaadato ayaynu kugula talinaynaa waxaanu kuu rajaynaynaa inaad maskaxaada aada u tajiso ilaahay aad tala saarato caafimaad aad ka barido cimri dherer aad ka barido cibaado suubaan aad ka barido waxaanu aada kugu adkaynaynaa inaad walwalka iska yarayso oo aad xaaladda aad ka baxdo inaad guur fiican iyo mustaqbal wanaagsan aad u kaba xidhato oo qof fiican oo diin iyo iimaan leh iyo dhaqan fiican leh haddii uu guur kuu soo bandhigo aanad diidin aad guursato inahaas aynu kusoo ururinaynaa walaasheen taladeedna fadlan la sii wadaaga oo usii sheergaraya bulshada kale iyaduna laga yaabo inay arrintan ay xaaladahan oo kale ay ku hareeraysan yihiin oo talooyinkeenna caafimaad u baahan idinkana waxaan idiin rajaynaynaa nolol wanaagsan iyo mustaqbal ifaya fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu